salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan khiyaaray jimco wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka kuwa ugu doorgaroonna waxaa qayb ka noqonaya cali guuldaawe oo ka badbaaday isku day dil kadib markii qarax xoogan lala eegtay gaari uu saarnaa haddaba waxaan kula wadaagi doonaa sida la yaab kale uu qaraxasi kaga badbaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya dagaalkii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe kaasi oo dhaxmaray al-shabaab iyo ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka oo isku garab ah iyo sidoo kale al-shabaab oo markii labaad soo weerartay deegaanka Wargaadhi ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaan kula wadaagi doonaa xogo iyo sidoo kale macluumaad ka imaanaya dagaalkaasi iyo sidoo kale khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi iyo cidda gacanta ku haysa deegaanka Wargaadhi ee gobolka Shabeellada Dhexe dhinaca kalena Ethiopia ayaa noqonaysa dalka labaad ee aqoonsanaya Somaliland xogo iyo sidoo kale tafaasiil dheeraad ah oo arintaasi kaga saabsan ayaan ku hayaa iyo sidoo kale sida la yaab kale oo markan Ethiopia ay ugu dhaqaaqayso go'aan geesilimo leh kaasi oo girgili doono geeska Afrika qodobada kale xildhibaanada ka soo jeeda waqooyi oo taageeray aqoonsiga Somaliland iyo dagaal afeed oo markan ka dhex qarxay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya xilli ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo markaasi qadka telefoonka kula hadlay wasiirada markaasi dagaal afeedka xalay uu ku dhaxmaray qodobadaas iyo sidoo kale qodobada markaasi nagu soo kordho ayaan kula wadaagi doonaa daawadayaal balse macluumaadka iyo sidoo kale xogahaasi intaan kula wadaagin haddii ay tahay markii kugu horreysay soo boqoto fadlan YouTube-keena subscribe saar oo rukumo oo ka mid noqo saaxiibada halkan markasta aan ugu soo baahino xogihii ugu dambeeyay arrimaha Soomaalida iyo caalamka muuqaalkana like saar sina share garay wixii fikirkaaga ana qaybta hoose ee faalada noogu reeb waad ku maasan tahay daawashada iyo sidoo kale la jaanqaadka wararkeena mahasani daawade mar kale soo dhawaada aynu ku bilownay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guuldaawe Xuseen oo ka badbaaday isku day dil kadib markii qarax xoogan lala eegtay gaari uu saarnaa madaxweynaha iyo sidoo kale kolonyo la socotay Cali Guuldaawe Xuseen ayaa ka ambabaxay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isagoo ku wajahan magaalada Jowhar ee caasimadda ku meel gaarka ah ee markaasi Hirshabelle garoonka Maxamed Dheere markii uu ka soo degay madaxweynaha iyo sidoo kale wufuudi markaasi kaga timid magaalada Muqdisho kuwaasi oo markaasi ka soo tagay garoonka Maxamed Dheere ee magaalada Jowhar markii ay garoonka ka soo baxeen wadadii markaasi lagu magacaabo Carmoli oo ay marayeen ayaa mid ka mid ah gawaaridii ama sidoo kale kolonyadii la socotay madaxweyne Cali Guuldaawe waxa uu ay la kulmeen qarax aad u xoogan oo markaasi la filayo inay ka dambeeyeen xubno ka tirsan kooxdaasi al-shabaab qaraxani ayaa la sheegay inuu ka badbaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guuldaawe Xuseen iyadoo sidoo kale khasaaro xoogan ay soo gaareen wufuudda markaasi la socotay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle xogaha iyo sidoo kale macluumaad dheeraad ah oo kaga imaanaya qarax uu ka badbaaday Cali Guuldaawe Xuseen ayaa waxay warinayaan in gawaariga qaraxa uu markaasi haleelay gaari ay la socdeen agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Hirshabelle Maxamed Shuuri iyo sidoo kale walaalka Cali Guuldaawe Xuseen iyo sidoo kale laba korneel oo ka tirsan markaasi dowlad goboleedka Hirshabelle wararku iyo macluumaadku waxay warinayaan in khasaare aanan sidaas u xooggan soo gaaray kolonyadii markaasi la socotay Cali Guuldaawe Xuseen iyo sidoo kale marka laga reebo in gawaaridii markaasi uu qarax la kulmay uu aad u burburay dhaawacyo aad u fudud ayaa soo gaaray markaasi wufuudi la socotay Cali Guuldaawe Xuseen waxaana haatan lagu dabiibayaa cisbitaalada ku yaala magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ilaa iyo haatanna war rasmi ah kama soo bixin dowlad goboleedka Hirshabelle oo ku aadan qaraxii ama isku daygii dil uu ka badbaaday madaxweynaha maamulkaasi Cali Guuldaawe Xuseen iyo sidoo kale guud ahaanba ammaanka markaasi goobta uu qarax ka dhacay ay adkeeyeen ciidanka markaasi dowlad goboleedka Hirshabelle iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo halkaasi ku sugan laamaha ammaanka oo xiriir kala duwan la sameeyay ayaa inoo xaqiijiyay in baaritaano ay wadaan kaasi oo ay ku baadigoobayaan cidii ka dambeysay markaasi qaraxii uu ka badbaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guuldaawe Xuseen iyadoo sidoo kale qaraxani lagu tuhunsan yahay markaasi inay ka dambeeyaan kooxaha nabaddiida ee kooxdaasi al-shabaab dhinaca kalena khasaarihii ugu badnaa oo markaasi ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe kaasi oo dhaxmaray kooxda al-shabaab iyo sidoo kale ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaya ciidanka kuwa dadka deegaanka dagaal aan waxba la isku reebanin kuwaasi oo jilbaha markaasi la isku aastay ayaa ka dhacay deegaanka Wargaadhi ee gobolka Shabeellada Dhexe halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa macawisleyda markii kadib kooxda al-shabaab ay ku soo weerareen gawaari markaasi laga soo buuxiyay walxaha qaraxaasi kadibna waxa halkaasi ka qarxay dagaal foolkafool ah kaasi oo dhaxmaray ciidanka xoogga dalka oo garab ka helaya kuwa dadka deegaanka iyo sidoo kale xubnihii kooxda al-shabaab ka tirsanaa oo markaasi weerarka aad u xoogan oo soo qaaday ilaa iyo haatanna
lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi maadaama walow wararku iyo sidoo kale macluumaadku waxay xaqiijinayaan in khasaare xoogan uu soo gaaray labada dhinac. ciidanka xoogga dalka ayaa markaasi lagu soo waramayaa inay jilbaha u aasteen weerarkii kaga yimid kooxda al-shabaab iyo sidoo kale markaasi ciidanka kuwa dadka deegaanka oo isku dhinaca, waxaana haatan lagu soo waramaya in guud ahaanba deegaanka Wargaadhi ee gobolka Shabeellada Dhexe ay gacanta ku hayaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka. al-shabaabkii halkaas soo weeraray ayaa jab culus lagu gaarsiiyay sida ay inoo xaqiijiyeen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka markaasi ku sugan deegaanka Wargaadhi ee gobolka Shabeellada Dhexe. al-shabaab ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay isku aruursanaysay deegaano ay kamid yihiin Masaajid Cali Guduud sidoo kalena qaybo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. waxaan lagu soo waramayaa in shabaabkii soo weeraray halkaasi ay ka yimaadeen Masaajid Cali Guduud. dhinaca kalena xog la yaab leh ayaa markaani ka soo yeeraysa magaalada caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa, waxaana xogaha iyo sidoo kale macluumaadka halkaasi ka imaanayaan ay warinayaan in Itoobiya ay noqonayso dalka labaad ee markaasi aqoonsanaya Somaliland, iyo sidoo kale xogo iyo sidoo kale macluumaad arrintan ku saabsan ayaan ku hayay iyadoo sidoo kale cabsi xoogan ay soo wajahday shacabka Soomaaliyeed kadib markii Itoobiya ay guud ahaanba haatan go'aan adag ku qaadatay in Somaliland ay u aqoonsato Soomaaliya inuu yahay dalka madax bannaan. Itoobiya ayaa lagu soo waramayaa in sababta ugu weyn arrinkan u sameynayso inay tahay kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay kaga adkaatay arrintii badda kadib madaxweynihii markaani Somaliland xilkii ka degay Muuse Biixi Cabdi kadib markii uu heshiis la gaaray Itoobiya kaasi uu kala saxiixday qayb ka mid ah dhulka Soomaaliya. arrintaasi oo dagaal xoogan ay kala kulantay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa guud ahaanba dowladdu waxa u suurta gashay inay guul ka gaarto markaasi aqoonsigii ama sidoo kale xadgudubkii Itoobiya ay kula kacday qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya. Itoobiya ayaana haatan lagu soo waramayaa in ay aad u danaynayso in Somaliland ay aqoonsato in Soomaaliya uu noqonayo dalka madax bannaan. sargaal sare oo ka tirsan ciidanka Itoobiya ayaa lagu soo waramayaa inuu safar ku tagay magaalada Hargeysa kaasi oo kulamo kala duwan la qaadanaya ayaa la leeyahay madaxweynaha maamulkaasi Cabdiraxmaan Ciro iyo sidoo kale wufuud kale oo markaasi qayb ka ah ayaa la leeyahay madaxda ugu sareysa ee maamulka iskiisa madax bannaanida isugu dhawaaqay Somaliland. talaabadan ayaa noqonayso mid xadgudub ku ah qaranimada Soomaaliya haddii Itoobiya ay go'aankeeda si rasmi ah ugu dhabayso, taasi oo ah in Itoobiya markaasi Somaliland ay aqoonsato dalka madax bannaan Soomaaliya. dhinaca kalena xildhibaanada ka soo jeedo waqooyi galbeed ayaa lagu soo waramayaa inay guud ahaanba aqoonsadeen aqoonsiga markaasi Somaliland ay aqoonsato Yuhuudda, iyadoo markaani dagaal afeed uu ka dhex qarxay ayaa leeyahay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya. xildhibaanada ku sugan magaalada Muqdisho oo ay markaasi ka soo jeeda gobolada waqooyi ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho iyagoo markaasi kaga arinsanaya xaaladda markaasi ka soo cusboonaatay Somaliland. xildhibaanada ka soo jeeda Somaliland oo ay ku jiro baarlamaanka Soomaaliya ayaa gabi ahaanba markaasi la leeyahay waxay aad u taageereen aqoonsiga markaasi Israa'iil. xildhibaanada oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si adag uga hadlay dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo marba aan soo hadal qaadin ayaa la leeyahay inay diidaan ama ay ka soo horjeestaan aqoonsiga markaasi Israa'iil ay ku aqoonsatay markaasi Somaliland. qodobada ay soo saareenna waxa qayb ka ah qodobka ugu horeeya waxay leeyihiin waxaan cadeynaynaa in Muqdisho aan u joogno midnimo, waxaan aaminsanahay in dantu ay ku jirto wadajirka iyo sidoo kale dhammaan ummadda Soomaaliyeed. dowladdu Soomaaliyeed 1 Luulyo sanadkii 1960 waxay ka dhalatay laba dowladood oo markaasi la oran jiray ay leeyihiin Somaliland iyo sidoo kale Soomaaliya.